عيسى عبد الله oo yaqaano Ciise Dhillax ahna raadiyaha kaliya ilaa 1950 magaalada Berbera ka dhex shaqeeya ayaa saaka warbixin dheer oo ka qaatay shabakada wararka ee Harwanaag News magaalada Berbera waxa uu kaga waramay hawshan idaacadda wareegta sidii uu ku bilaabay waxaan bilaabay 55 marka hore waxa daasad baan garaaci jiray daasadana waxa ii dhiibay jiray dhinacyada Ingiriiska anigu aan Ingiriiska aqoon ayaa la iga turjumaani jiray waxaan u yeedhaa uqaashi magaalada waxaan u yeedhaa culimada waxaan u yeedhaa kulba cidii muraad loo leeyahay Berbera waxa iga daasad markii aan daasadaan garaaci jiray guurina dafkaan u guuray markaan dafkii ka guurayna ilaahay amrigayga ku sameeyay waxa yimi qalabkan mikrofoonada casriga ah Ciise Dhillax wadadiisu hadda sagaashanaadka ay ku dhowdahay waxa uu mar kale ka hadlayaa muddada aanu arag magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland Hargeysa iyo Burco muddada marka laga joogo 40 sano Berbera kama bixin Hargeysa waxaan maqlaa waa xaggaas galbeedka ku taalaayo anigu 42 sano marka Hargeysa ma tegin Burcana iyada inta in leeg ma tegin Berberana dalkayso anigu waan lugeeyaa gawaadhida ma raaco markan dadka ogeysiiska u bixinayo haddaba mar uu ka hadlayay haweenka oo goobta uu ka hadlayo aad ugu soo urura xilliga uu xayeysiinayo ama adeegyada fariimaha uu gudbinayo xaafadaha magaalada Berbera ayaa waxa uu yiri dumarka anigu ma caasho ilaahay amarkiisa iyaga ay caasho sida ajaajida arjibana qalkiiga anigu waan ku doonaya gaarigana nasaar gaariga mas'alo waan lugeeyahay waxaana igu socdaan dumarku waxa weeye lacag la igu duuduugo sida xaqiiqiya waliyo wasiila sheegta lacag la igu duuduugo maleey wixii daayirnimo la igu raacana maleey dumarku waxa igu raaceen waxaan soo sheegaa waxaan oregeedu u sheegay oo inankeeda weyn u sheegay oo inanteeda weyn aan u sheegin dhakhtarkii kaliya weyn dhakhtarkii makaanka weyn kii ulkujiisa weyn kii xubnaha weyn kii muruqyada weyn kii barkima ka dhaca weyn waan ka tagaa hadda markaas aan la ciiso noolo bal anaguna deeladadu ma nahay haddaan wax kale ku weyno ma yaraan ku soo qarsayn doonaa ma yaradii la soo qorsheeyay ayaa gacanta laga soo saara marka dumar guurkooda ma basana meherku wixii soo kaaya dhacay 14 ima kana qaalisay ka noo socota waana jira wakan mar kale Ciise Dhillax oo ka hadlaya dhinaca suugaanta isagoo oo sheegay inuu mar kamid ahaan jiray kooxihii Janan Daawud danan iyo isagoo markii dambe ku dambeeyay gobolada Waabari intii aan 1980kii dhibaatadu aanay dhicin haddaba Ciise Dhillax waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha uu sheegay inay waqtiyadan dambe magaalada Berbera isbedelka ay ku sameeyeen midna mid weyn ba inuu taariikhda wuxuu ku galay dalka ka sameeyo ayaa loo baahan kow ila xaqiiqadiya in kana hawlaha Berbera ka socda oo aan ku 44 sano ka xagaa bixin aad baan u dhaxsanayo maamulka suuqa aan eegay gabayar baan tiriyay dhaxdintii aan la farxay dawladda hoose Berbera waxay qabatay ee taariikhda ay ku gashay waxa dadweyne oo balkaalaya degmadii Berbera ee dawladda xagaafeen bilicdooda daawada maamul baacada yimi guryaha dumaayire shingadu daloolaan dayac tirayaba yimi taariikhda doorka duqu waa ku qorayaa garoonada ka sii daran waaniga dhexbaxboodka garoonka badda Berbera wabaalka adduunka dhan qaadi Afrika oo dhammayso weeymayso waa tacbiya taariikh weeyaan takada marka waxa hawlaan iga xidmado sidaas iyada san iyo sodon sano beerinka ilaahay aan u gal sidii lixdii markii la furay ugu dambeysay ilaa 40 sano siyaado weeyaan cadaalo qolqayaram takada waleedo waa soo yara hadal qaadayo waxqabadkeedii baan la dhacay taariikhda galay halka waxaan ka yiri maareeyada kadeena ilaahay madaxiisiyo mashihiisa haraajay مسؤول داعية وي دكتور معان تعب مغلوب كل شيء